waagaag saaxiibayaal kulankan adag ee u dhexeeya goboleeyay sidoo kale degmada Xamarweyne waxaa indhaha ku wada haya dhammaan degmooyinka ku jira groupkani iyo sidoo kale dhammaan labada degme ee iyagu markaa ku aadi doonaan wareegga nagta markii la eego kooxaha ka soo baxa ama degmooyin ka soo baxa groupkani gobordhow baaskii ciyaarta ayaa laamba qaadi doonaa hadduu alla kala noqdo dhammaan dhinacyada isku diyaarinayaan in baaskaasi ay ka faa'iideystaan markii laga reebo degmada Xamarweyne oo baaskii ugu horeysay ugu dambeyn iyadoo sameysay way sameeyeen gadaal ayaana loo celiyay daafacyadii degmada Xamarweyne ayaa kubadda markaas soo abuuraya iyaga ayaana markaa isku dhubsanaya mid ka mid ah daafacyada daada yar ee bandhiga wanaagsan sameynaya Amjad ayaa kubadda soo tuuray Garas Baali Cadnaan ayaana la siiyay kaarkii guduudna ugu horeeyay tartankan taasoo ka dhigan Cabdifataax uu noqday garsoorii ugu horeeyay ee kaar guduudan bixiya haddana isaga dhexdhexaadinaya dishootiya lagu jira darba kulul birtaagteeda ayay martay tagtay saaxiibayaal waa kan ciyaaryahan Maxamed oo gubaleeya waa uu soo xambaaray madax maya baabiyo maxaa heesaa ayaa la yidhi madax ulaade dhanka iyo shabaq degmada Xamarweyne goolhaya Luka ayaa si tartiib oo dhib la'aan ula degtay goolhaya ayaa kubadiisa ugu dambeeyna waxaa soo laadaya ciyaaryahanka Amjad lagu magacaabo dhexdaya talaa durbo weerar halisteeda darba gantaal ayuu shabaq markaa taabsiiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo baabiyo ayaa dhaliyay goolkiisii labaad ee tartankan baabiyo ayaa markaa shabaqa taabsiiyay goolkii shanaad guud ahaan tartankan ay ka dhaliyaan dhanka iyo gubaleeya ayaa markaa lagu magacaabo Luka dabaaldegaya doonanayaan ciyaartooda degmada gubaleey ayaa hoggaan ka qabatay hal eber gubaleey iyada ayaa ku hogaaminaysa Allah mucjiso oo gantaal ayuu shabaqa taabsiiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo baabi ayaana markaa yiri hoggaanka mar kale iga qabta baabi ayaana goolkiisii labaad sidaa ku dhaliyay haye markaan Cabdiqafaar waa uu kor ugu badan halisteeda leedahay madax wala diiday offside ayaa la yiri wala diiday offside ayaa markaa la taagay calankii ayaana sidaa loo taagay durba Xamarweyne weerar gacan turayana noqotay offside ayaa la yiri offside-kii saddexaad ayaana markaa sidaa lagu soo diiwaan geliyay offside ayaa markaa la yiri Kayte ayaa kubadii soo celiyay waa kan Maxamuud waa kan Kayte waa Xamarweyne waa ciyaaryahan Dayo gamayo markaa la ciyaar kariya waa la khaliif laacibka waa Dayo dhaxda halisteeda markan Allah ma aysan noqon ayaa soo dhigay Bilaali wala dhiwa Bilaal gubadley Bilaal maya gool kulaada ayaa la dhigay penalty degmada lagu magacaabo Xamarweyne ayaa gool kulaad ugu dambeyn laga dhigay gubaleey ayaa rigoor loo dhigay ciyaaryahanka markaasi lagu magacaabo Ibow ayaa laga dhigay gool kulaadka degmada Xamarweyne haddii laga dhaliyo laba gool iyo wareey hoggaanka lagu qaban doonaa Bilaal ayaa lagu galay rigooradii labaad guud ahaan tartanka ciyaartii xisaab badneed ee gubaleey saddexda gool ay markaas ku adkaadeen ee kulankii xisaab badnaa iyagu markaa ay la ciyaareen degmada Howlwadaagne Bilaal gool kulaad ayaa lagu galay maantana gool kulaad ayaa lagu galay haddii uu gool kulaadkan dhaliyo waxay noqon doontaa goolkii lixaad ee degmadiisa ay dhaliso Bilaal shabaqa ayuu gaaraya wuxuu ansixiyay goolkiisii saddexaad ee tartankan wuxuu ansixiyay goolkii lixaad ee gubaleey ee tartankan wuxuu ansixiyay goolkii sagaalaad waa raadey goolkii sideedaad ee laga dhaliyo degmada markaa Xamarweyne tartankan ugu dambeyn Bilaal ayaa shabaqa gaaraya kulan kadib ciyaartii kaaranayaan markaa uu suuragelin oo gool dhaliyo markaa halkan ka qaadan doonaan goolkii 75aad guud ahaan tartankan ayuu maanta ansixiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Bilaal 75 gool ayaa tartankan laga ansixiyay 75kaasi gool leh gubaleey waxay ku leedahay 6 gool 69 kalena degmooyin kale ayaa leh gubaleey 2 Xamarweyne eber gaari doono Bilaal ayaa soo galay Bilaal wali gool maya wow walisaya kubadaasi waagaag markan waa weerar
dhinaca garabka ayaa la saaray waa kan bile banaanka ayuu keena bilaal maya waa iska soo bixiyeen mar kale Oscar saddex gool iyo eber Oscar oo bedel ku soo galaya ayaa shabaqa gaarsiiyay goolkii saddexaad ee ciyaartan degan gaadiska gool hadee dhaliya hataa waa socdaa waa lagu sii daraya qasab waay ciyaaryahan Oscar ayaa darbe gantaala geeska ugu dhajiyay bilaal ayaa ku dhawaaday inuu markaa goolkiisii afraad ee tartanka degmooyinka uu ansixiyo hayeeshe waa laga diiday waa laga soo bixiyo Oscar ayaa ugu dambeyn yiri aniga 3 gool iyo waliba eber ka dhigaya ciyaartan bilaal 3 gool ayuu tartankan hore ugu dhaliyay galabtana wuxuu markaa raadinayaa inuu dhaliyo goolkiisii afraad waa kan ciyaaryahan Suleymaan waa dhiiba waa weerar degmada waa laga soo dhigay mar kale Dayo waa laga diiday Ridwaan Dayo mar kale ugu dambeyn waa ilaadeen banaanka martay haddii gool haye masrax buufan oo soo laadane sida muuqanaysa riga lagu dhufan doonaa ciyaartii ayaana markaa sida ku soo ilaa doonto waa ay soo ilaatay saaxiibayaal ciyaartii 3 gool iyo eber ayay markaa ku soo dhamaatay degmada Gubadley 4 kulan ciyaartay 2 badisay 2 barbare gashay degmada tani waxay dhaliyeen ilaa iyo markaa 7 gool waxaa laga dhaliyay 1 gool waxa uu soo hartay 6 markaasi gool waxayna leeyihiin ilaa iyo 8 dhibcood Gubadley ugu dambeyn waxay noqdeen kuwa markaas 8 dhibcood sii taga iyagoo 8 dhibcood tagane wali ma xaqiijin inay soo baxeen cajiib tabinteeni tooska ee saaxiibayaal waa naga inta